kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba khiyaarta ku xiran Bulqaas Media ku soo dhawaada qaybta koowaad barnaamij taariikh ah oo aanu uga hadli doono soo gelitaankii xeebaha Soomaaliya ee gumaystayaashii reer Yurub. kadib markii ay in badan ay wax ka ogaadeen wadooyinkii badda iyo degmooyinkii ku yilay xeebaha Soomaaliya ayaa ganacsatadii iyo raggii sahanka ahaa ee reer Yurub waxa ay bilaabeen in ay u tallaabaan gudaha Soomaaliya. inkastoo dalalkii la gumaystay ay nala qabeen falkan misna dalkayagu waxa ay ku bilaabatay bilowgii qarnigii 19aad gaar ahaanna markii uu Ingiriiska uu ka soo degay magaalada Cadan sanadkii 1839 markaasi oo nolosha reer miyiga ay ku soo korortay raadadkii ay ku reebeen raggii hogaaminayay sahmiyayaasha reer Yurub kuwaasoo aan deegaanka ka helin martisoorkii iyo soo dhaweyntii lagu yaqiin Soomaaliya sababta oo ah iyaga oo la dareemayay ujeedada safarkooda oo aan fiicnayn. wixii ku horeeyay 1870kii dadka Soomaaliyeed ee ku nool geeska Afrika waxay ahaayeen kuwa noloshooda ka madax bannaan faragelin shisheeye. ganacsatadii Carbeed ee xilligaasi imaan jirtay deegaanka ma aysan lahayn damac ka baxsan ganacsiga ay ugu socdeen deegaanka, sidaa daraaddeed ma aysan ahayn kuwa ay Soomaalidu ay u arkayaan in ay yihiin dad shisheeye ah. inkastoo qaar badan oo ganacsatadaasi ka mid ah ay deegaanka ay ku lahaayeen rugo ganacsi iyo deegaan, misna waxay ahaayeen kuwo ogaal u lahaa halka ay ka soo jeedaan. ganacsatadaasi waxa ay guryo ay ku lahaayeen degmooyin ay ka mid yihiin Kilwa, Mombasa, Malindi, Barawe iyo Xamar, laakiin ganacsatada reer Yurub waxay ahaayeen kuwo ka aragti duwan ganacsatada Carbeed. Soomaalidana waxay u arkayeen dad shisheeye ah. ujeedooyinkooduna waxay ahayd inay u gogol xaaraan barnaamijka gumaysi oo ay dowladahooda ay damacsanaayeen, iyagoo la imaan jiray su'aalo badan oo ay ka mid yihiin ilaha biyaha laga cabo sida webiyada, harooyinka iyo ceelasha. waxayna raadin jireen buuraha iyo degmooyinka ay dadka ku badan yihiin. raggaasi waxay u badnaayeen dad aqoon u leh aqoonta bulshada ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo social science. waxayna xiisayn jireen sida ay beeluhu ay isku xigaan, arrimaha ay isku khilaafsan yihiin, waxa ay ka midaysan yihiin iyo taariikhda colaadeed ee ka dhaxaysa. waxaana caado u ahayd in ay sitaan alaabo badan oo ganacsi, qaybo ka mid ahna hadiyad ahaan u siin jiray duqayda beelaha ay dhulkooda ay dhex marayaan si ay nabadgelyo ugu dhex gooshaan. waxayna ku dadaali jireen inaysan marna u muuqan rag colaad iyo xumaan wada, sidaa badanaana waa ay ku guulaysan jireen socdaalkooda. xilligii isweydaarsiga labada qarni 18aad iyo 19aad dhaqdhaqaaqii ganacsi iyo kii ciidamadeed ee dowladihii shisheeye ee ay ka wadeen xeebaha iyo xuduudka dhulka engegan ee Soomaaliya ma noqon mid gayeysiya in ay gumaystaan. inkastoo oo ujeedada dhaqdhaqaaqoodu uu ahaa damac gumaysidoon, misna waxaa ka hor imanayay jahliga ay kaga sugnaayeen nolosha gudaha ee Soomaaliya. badaheennu waxa ay yeesheen qiimo muuqda oo ay daawanayeen xogaggii reer Yurub, waana mid la curatay taariikhda uu aadmigu uu ku bilowday dhaqdhaqaaqii isbarasho iyo wax kala bedelasho, taasi oo keentay in ay deegaanka ay markaasi ku loolamaan dalalkii markaasi dunida ugu xooga weynaa. qiimaha ay xeebahayagu ay leeyihiin ka sokow in dowladihii gumaysiga ay dhulkayaga milicsadaan waxaa kalifay isha naxariista leh oo ay ku eegayeen boqortooyadii Xabashida. qarnigii dhexe waxaa Yurub ka jiray aragti diineed oo u xaklinaysay hiilada boqortooyada Xabashida, waxayna ugu baaqeen in laga difaaco cadowga ku hareeraysan ee Islaamka. xilligaasi ahmiyadda xeebaha Soomaaliya waxaa garab socday hadba sida ay u soo kordhayeen dhaqdhaqaaqii doomaha ka imanaya Yurub kuna sii qulqulayay Hindiya. sanadkii 1741 Axmed bin Saciid oo u dhashay dalka Yemen ayaa maamulkii Cusmaaniyiinta ka eriyay deegaanka koonfur bari ee Cumaan, wuxuuna halkaasi ka dhisay maamul saldanadeed oo isagu oday ka ahaa. wuxuu ahaa maamulkaasi mid ku abtirsada saldanadihii isaga ka dambeeyay talada dalka Cumaan. saldanadahaasi waxay xiriir ganacsi oo xoog badan ay la lahaayeen jasiiradaha Zanzibar iyo degmooyinka ku yaala xeebaha bariga Afrika. dadka reer Cumaan
goor hore ayay ku guulaysteen farsamada adeegsiga gaadiidka badaha. socdaalkii Vasco da Gama uu ku yimid Koonfur Afrika waxaa hagayay nin u dhashay dalka Cumaan oo la yiraahdo Ahmed bin Majid. saldanadda Cumaan waxay ahayd saldanad hana qaaday oo ku caan baxday hanti, xasilooni siyaasadeed iyo ciidan xoog leh oo badaha ka tallaaba, waxaana magaalo madax u ahayd Masqat ee dalka Cumaan. dabayaaqadii qarnigii 18aad khalkhal ku yimid saldanadii Cumaan ayaa raad ku yeeshay xasiloonidii deegaanka xeebaha koonfureed ee Soomaaliya iyo kuwa la dariska ah. sanadkii 1784 Suldaan Busayid ayaa waxa uu isku dayay in uu dagaal ku qaado xeebaha bariga Afrika si uu halkaasi uga abuuro imaarad uu isagoo oday ka yahay kana madax bannaan saldanadda walaalkiis. wuxuuna qabsaday jasiiradda Zanzibar iyo degmada la yiraahdo Kilwa ee ku taala xeebta koonfureed ee Tanzania. deegaankaasi waxa uu ahaa meel ahmiyad weyn u leh taliska saldanadda. Suldaan Busayid oo arrintan ka xumaaday ayaa ciidan ku kiciyay degmooyinkii uu walaalkiis qabsaday, wuxuuna ku guulaystay inuu hoosgeeyo maamulkii boqortooyada ee Cumaan. in muddo ah ayay ku sugnayd xasilooni iyo deganaansho siyaasadeed. sanadkii 1804 ayaa khilaafkii soo cusboonaaday sababtoo ah amiir la oran jiray Sayid Saciid ayaa waxa uu dilay walaalkiis oo suldaan ahaa. dabadeedna isaga ayaa isku caleema saaray boqornimadii, wuxuuna dhisay dawlad adag, wuxuuna dib u habayn uu ku sameeyay ciidamadii isagoo gaarsiiyay ilaa 6500 oo nin. waxa kale oo uu dhisay 15 doonyood oo ah kuwa dagaalka, wuxuuna ku fakaray in uu maamulkii gaarsiiyo dhulkii uu xiriirka ganacsi la lahaa oo dhan. sanadkii 1806 suldaanku waxa uu weeraray jasiiradda Zanzibar iyo magaalooyinka ku yaala bariga Afrika, kuwaasi oo ah degmooyinka Lamu, Kilwa iyo inta u dhaxaysa. Cumaaniyiinta goor hore ayay bilaabeen in xiriir ganacsi ay la yeeshaan dadyowgii deegaanka, waxaana jira badmareenno reer Cumaan ah oo goor hore ogaaday adeegsiga dabaylaha dulmara badweynta Hindiya ee loo yaqaano mansuunka. doonyaha shiraaca leh ee xamuulka qaada ee u kala goosha Cumaan iyo bariga Afrika waxay badda ku mari jireen dabaylahaasi iyagoo u kala gudbi jiray qaaradda Asia iyo Yurub. waxyaabaha ay ka ganacsan jireen xilligaasi waxa ugu weynaa adoomada laga keeni jiray ilaa bartamaha qaaradda Afrika. waxa ay lahaayeen gaadley Afrikaan ah oo la shaqayn jiray ganacsatada Carbeed, ugana keeni jiray dhulalka gudaha ee qaaradda. dadka qaar waa soo iibin jireen, qaarna waa soo qafaali jireen. waxa kale oo ay ka ganacsan jireen xubnaha duurjoogta sida haragga shabeelka, foolasha maroodiga, miciyada iyo cidiyaha libaaxa, baalasha goroyada, geesaha biciidka, qolofta diinka iyo qobada. akhayaaray intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa qaybta koowaad barnaamijkii taariikhiga ahaa ee aanu uga hadlaynay soo gelitaankii xeebaha Soomaaliya ee gumaystayaashii reer Yurub. inta aan qaybta labaad ee barnaamijkan aanu ku kulmi doono, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. fadlan haddii aad Bulqaas Media aad ku cusub tahay, ha iloobin in aad like iyo follow aadna soo tiraahdo. haddii aadse tahay macmiil soo noqday, hanaga iloobin in aad share garayso barnaamijkan taariikhiga ah oo dad badan aan filayo in ay wax badan ay ka faa'iidi doonaan, isla markaana wixii commenti iyo aaraa ah aad noo reebtaan. waad mahadsantihiin.